عبد الله وما سنتهي وحان اسكو عزيلي dhibaatadii shalay ka dhacday magaalada Baydhabo darteeda ayaan isku casilay sababtoo ah dhacdadaas aad iyo aad ayaan ugu xumaanay haddaan nahay siyaasiyiintii ama maaragtay mas'uuliyiintii oo dawladda koonfur galbeed ku metelayay dadkii shalay dhibaatada loo geystay oo la gaarsiiyay qaarkood la dilay qaarkood la qabtay dhaawac ayagoo ah qaarkood maaragtay ayagoo maaragtay meeshii laga soo bixiyay marka dhacdadaas ay dhacday oo foosha xumayd ayadoo maaragtay arrintaas la xallin karo oo xabad ay noqotay in lagu xalliyo dhacdadaas darteeda ayaan isku casilay damiirkaygii dadnimadayda ayaa isiin weysay in aniga wasiir sii ahaado waaya mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed qaarkood waxay sheegeen in ciidamada ammaanka oo roondo ku jira ay kooxaha hubaysani rasaas ku fureen sidaas darteedna ciidamadu ay isdifaaceen xaqna ay u leeyihiin inay gacanta ku qabtaan ama ay ka hortagaan cid kasta oo amniga lid ku ah arrintaa wax ka duwan miyaad haysaa adiga waxaas waxba kama jiraan cabdullaahi yow arrinta ummadda dhan way og yihiin soomaalida dhan way og yihiin dadkaas waxay ahaayeen dad ka soo horjeedo sanadka lagu daray oo maaragtay madaxweyne cabdicasiis loogu daray dad ka soo horjeeday ahaayeen marka weerarka iga ma qaaday mise maamulka ayaa soo qaaday sanadkaas ma ogolin ay leeyihiin oo keliya weerar ma qaadin guriyay ku jireen isbaara ma dhiganin jid ma goynin dad ma dilin xabad dad kuma ridin qofka bini'aadamka xataa waxaa iska celin kartaa ama maaragtay dowladnimada lagu weerari karaa markuu asiga amar qaadan waayo jididka intuu fadhiisto hubka uu la fadhiisto asigoo maaragtay inta lama soo mari karo anta aniga inoo xiran tahay hadduu yiraahdo ama maaragtay xabad uu bilaabo ama maaragtay dhibaato kale uu sameeyo qofkaas camal waxaa la dhihi karaa even qofkaas xataa dad uu leeyahay siyaasiyiin ayuu ka soo jeedaa beeluu ka soo jeedaa mas'uuliin ayuu leeyahay odayaal ayuu leeyahay odayaashiisa loo diri karaa looma horseedi karo koonfur galbeed danna uma aha dowladnimadana dan uma aha fiiri guri oo maraayo haddaad ku jirto oo adigii dowladda aad ahayd haddaad bilowday dhagax tuuritaan ka waran dhibkeeda sooma lahan marka weerarka maamulka qaada miyaad leedahay oo dadka iyagu ciidamo roondo ku jira rasaas kuma aanay furin adi taas waxaa kasii daran aniga oo kula hadlaayo iyo xildhibaankii aniga beeshii masalay dowladda federaalka igu masalay oday dhaqameedyadii maaragtay salaadiintii nala socdaan anaga madaxweynaha u tagnay nimankaas guriyay ku jireen guriyay deganaayeen oo maaragtay madaxweynahan waxaan ugu tagnay ulajeedadayna ay ahayd in arrintii beryahan baraha bulshada lagu baahiyey oo ahayd nin ka tirsan mas'uuliyiinta ama maaragtay taliyaha booliiska oo yiri sida cabdiraxmaan cabdishakuur oo kale kabaha la maraynaa gurigaas uu dhahay madaxweynaha waa kaga dignay waxaan dhahnay xataa even inuu soo qaato hadalkaas ereygaas uu ku hadla ma ahaynaan dhahnay marka madaxweynaha waa u sheegnay raaligelinuu ka bixiyey kadibna waxaa dhacday madaxweynaha uu naga ballan qaaday in dadkaas aan la weerari doonin oo maaragtay arrintaas xal lagu dhamayn doono oo tartiib loo dhamayn doono laakiin waxaa habeen kadib in dadkii la weeraro maaragtay dhibaatada ay dhacdo oo loo horseedo maaragtay lagu xalliyo waay marka maamulka iyagaa weerarka qaaday oo weeraray dadka ku sugnaa guriga siyaasiga fargeeta ayaa leedahay soo maaha cabdullaahi warkaas waa ugu celinaa annagoo mas'uuliyiinta ah ayaa warkiina naga qaadan waayna nagu ixtiraami waayey guriga aniga aan deganahay iyo dhallinyarta meeshay ku jireen laba guriya noo dhaxaysay waa isku muuqanay anaana meeshu wixii ka dhacay oo xabad u sheegi karaa waana maaragtay aan maaragtay ka hadli karaa way sidee u dhacay noo sheeg aniga waxaan isku dayay inaan la hadlo maadaama dowladda aniga aan ku mathalayo in aan dhaho war xabad xal ma keenayso xabad yaa la bilaawin aniga ciidamo qaar ka mid ah dowladda ka mid ah gurigii ay soo galeen hurdaa laga kiciyey gurigii ka bax annaga dadkan gurigii maalcayga dhulkaan ku daraynaa lagu dhahay war waxaas wax soconaya maaha ballanaa isku ogeyn madaxweynaha la hadalnay maxaa dhacay markaan dhahayn waxaa la yidhi amaraana la siiy adigi laakiin dhib yuusan ku gaarin nimankan xabadooda iyo baasuukooda meeshuu soo gaaraa gurigan ka baxa lagu dhahay ilaa intaas waxaan isku dayay maaragtay in arrintan aysan naqanin xabad in lagu xalliyo marka amarka iyo ka yimid ma weydiis gacantay ka baxday amarka iyo ka yimid in la amarka iyo ka yimid yaa bixi
cabdullaahi amarka dalku waad ogtahay madaxweynuhu leeyahay madaxweyne haddii uu dalku uu leeyahay wixii meesha ka dhacay cid kasta oo mas-uuliyiinta ka mid ah way og yihiin marka aniga waxaan ku leeyahay madaxweynaha inay dhibaato aysan dhicin aan kala hadalnay kadibna amar yaa bixin kara in meel la weeraro marka madaxweynaha bixiyaad leeda amarka aniga ma bixin karo qof kaleedna ma bixin karo xildhibaanna ma bixin karo amarka yaa bixin kara dadka weerarkaasi dadka weerarka lagu dilay tiradooda waa imisa ee guriga lagu weeraree ee ku dhintay intaad ogtay ilaa 7 qof ku dhimatay gurigaas 7 qof marka oo dhinacyada degaan oo dhinacii la weeraro ay dhammaantood ah oo kooxdii guriga joogtay ee la weeraray ah sidaad sheegtay guriga ay ku jireen lagu weeraray waay dadkaas ay ku dhintay qaarna ilaa maaragtay 7 way ku dhaawacmeen Ilyas waxaad ogtahay xiisad ka dhalatay muddo kordhinta halka sanaha inay ka taagan tahay Baydhabo oo siyaasiyiinta mucaaradka ay diideen muddadaasi sanadka ah maamulkuna uu ku adkaystay oo uu sheegay inay tahay mid sharci ah adiga sideed u aragtaa muddadan halka sana ah ee hadda khilaafka uu ka taagan yahay Cabdullaahi horta aniga muddo kordhin anigana ma kordhin karo mana diidi karo mana ogolaan kari aniga waxaan ahaa shakhsi siyaasadeed oo wasiirka ah koonfurka xildhibaan ma ahay muddo kordhinta xildhibaano ayaa sameeyay haddana maanta xildhibaano ayaa diidan waa waxay la mid tahay waa sidii farmaajo camal xildhibaano ayaa 2 sano ku daray haddana xildhibaano ayaa diiday waa mucaaradna waa diideen hadda maanta marka koonfur galbeedna sidii camal waa haddii oo 1 sano lagu daray xildhibaanadii shalay ku daray haddana qaarkood ay leeyihiin ma ogolin ay leeyihiin marka aniga waxaan qabaa haddii dhiig ku daadanayo arrintaas ay dhacayso oo shacabka badigooda ay ka soo horjeedaan siyaasiyiinta ay ka soo horjeedaan xildhibaanadii shalay ogolaaday qaar ka mid ah haddana maanta ay diidan yihiin ay ka soo horjeedaan ani marka waxaan qabaa arrintaas in maaragtay ay ka fiican tahay in doorasho la aado doorasho la qabto si dalkii iyo dadka loo badbaadiyo laakiin number xildhibaana ayaa cod aqlabiyad ah ku ansixiyey haddana ma hayno tiro intaa leeg oo inta fariisatay diiday muddo kordhinta marka miyaan oran karnaa maamulku xaq u leeyahay in la ogolaado muddada sanadka ah loona daayo dabadeedna lagula xisaabtamo inuu doorasho qabto horta in loo codeeyo waayo shalay haddii dad ka mid ay codeeyeen haddana maanta ay diidan yihiin 20 iyo 30 ayaa hadda maanta taagan oo diidan yihiin marka anigoo su'aashaas marka soo gaabinayo aniga xildhibaanna ma ahayn haddana ma ihi wasiiran ahaa waxa i khuseeyay oo maaragtay aniga aan diidanahay in dawladnimada lagu raadiyo ama kursiga lagu raadiyo xabad iyo maaragtay xoog in lagu raadiyo ani taas waa ka soo horjeedaa in dhiig uu ku daato oo maaragtay dad ay ku dhintaan haddii ba xalkeeda la heli karo maanta cabdicasiis wuu aboodaa xildhibaanadaas shalay asiga keensaday maanta wuu aboodaa inuu maaragtay oo doorasho uu qabto hadduu asigu guulaysan karo uu hubo maaragtay maanta wuu samayn karaa doorashadii laakiin haddii maanta ay tahay dhiig iyo xabad ay tahay aniga waa ka soo horjeedaa therefore marka saas sababteed waxyaalaha aniga isku casilay ka mid tahay in xabad la rido maxaa ka jira in xiriir uu idin dhex mara adiga iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah oo iscasilaadaadu ay ka timid wada hadal idin dhex mara adiga iyo xubnaha muqdisho jooga cabdullaahi aniga maaragtay siyaasiyiinta weligayba waa isla hadli jirnay waana maaragtay dad dalkan ka soo jeeda waaye deegaankan ay ku dhashteen cidna isma dagaalsinin siyaasadaasaa maaragtay xogoo qof kastaba kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun xisbi kastaba kooxdiis ayuu ku faraxsan yahay dasiisu ayuu ku faraxsan yahay marka mar kastana aniga haddii ay ila hadlaan ama aan isla hadalno ma nihin dad isdagaalsan ama dhibaato ka dhaxaysa ma nihin aniga ma fadhiyo ayaga yidhahdinayaan ma wada hadasheen hadda sidii wax u dhaceen laakiin iscasilaadayda waa kugu celinaa iscasilaadayda maaha iscasilaad oo maaragtay siyaasiyiin ay ka dambeeyaan ama dad kale ay ka dambeeyaan waa iscasilaad aniga dadnimadayda iyo sharaftayda iyo karaamadayda ay ku timid waa anay iga timid iscasilaadaas ugu dambayntii mar haddii aad xilka iska casishay Baydhabana joogto magaaladana wararka laga helay ay sheegeen in dhaqdhaqaaqiyo socdaan ay suuragal tahay in xilli kasta iska horimaad mar kale uu dhaco maxaad qabanaysaa ma laga yaabaa inaad ku biirto dhinacyada mucaaradka ee qoriga qaatay ee maamulka la dagaalamaya aniga iskuma casilin maaragtay in aniga xabad aan rido waxyaalaha aniga aan diidanayo waa dalka inuu xabad ka dhaco waxyaalaha aniga aan diidanayo ka mid tahay mabda'gayna ma aha in la dagaalamo ha noqdo mucaarad ama muxaafid ha noqdo dawladda ha noqoto
aniga dadka ka soo horjeedaan ahay bataatan xabad in la rido marka magaaladan waa magaaladii aniga aan ku dhashtay xilan ka heeyay dawladdan oo maanta taagan dadkii soo dhisay ayaan ka mid ahay dadkii garab taagnaa ayaan ka mid ahay mana rabi maaragtay in dhibaato iyo shaqaaqo in horey loo sii abuuro ma garatay waayahay aad buu umahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Ilyas Cali Nuur wasiirkii warfaafinta ee maamul goboleedka koonfur galbeed oo caawa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu iska casilay xilkii wasiirnimo aad baad u mahadsantahay Ilyas